dhibaatooyinka iyo waxyeelada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye waxaa kormeer arrimahaasi loogu kuuragalay maanta ku tagay mas'uuliin uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo barbarkiisu ay socdeen gudoomiyaha degmada Afgooye qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee degmadaasi waxayna kormeer ay ku sameeyeen mas'uuliyiintan qaar ka mid ah masaajidaha ee degmada goobaha waxbarashada iyo qeybo kale oo ka mid ah xaafadaha iyo wadooyinka degmada Afgooye ayadana goobahan wali ay ka sii bidhaamayaan raadadkii uu ku reebay webiga Shabeelle kormeer ballaaran iyo sidoo kale indheendheen kadib waxaa warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed la hadlay gudoomiyaha degmada Afgooye Suldaan Cabdullaahi Maxamed Hiraabe ayaana sharaxaad kooban ka bixiyay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle la soo dhaafay waxa ka jirtay xaalad oo ah fatahaad webiga nagu soo fatahay markuu fatahay wuxuu saameyn u geystay goobihii waxbarashada iskuulaadkii masaajidadii dadkii deegnaa hareeraha webiga oo awalba iska taag darnaa waxaa sharaf iyo aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta degmada Afgooye noo imaaday nala dareen tahay biyaha ku dhex jirtid sharaf iyo karaame noo tahay indhaha aad ku aragtid gudoomiye dadkan oo webiga afkiisa degnaa awalba waxay la dhacayeen fatahaadihii hore ilniino haddana waxaa sameeyay bixii webiga soo fatahay gudoomiye dadkan waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah dadkan ma haystaan hooy cunno ma haystaan waxaa kaloo saayiday maalmahan kaneeco iyo shuban biyood marka maadaama ilaah mahadiyo maadaama maanta na soo booqatay waxaan rajaynaynaa inaa amar bixin doonto hay'adda Sodman way nala joogtaa iyadoo uga faa'iideysanayno in dhammaan hay'adaha ka howlgala degmada Afgooye iyo nawaaxigeeda waxaan rajaynayaa si degdeg ah inay ku soo gali doonaan baahideena iyo cabashadeena si degdeg ah ugu jawaabi doonaan Maxamed Ibraahim Barre gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa fariin dhinaca taala u diray hay'adaha gargaarka iyo sidoo kale dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sidii gargaar iyo garab loo gaarsiin lahaa dadkii uu waxyeeleeyay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle saan aragno indhihiina aad ku arki kartiin in saameyn waxay ku yeesheen daadadkii iyo fatahaadii webiga in xaafado ay dad shacab ay degan yihiin oo biyihii ay maasheeyeen xaafadihii oo dhan guriyihii ilaa qaar ilaa garabka ay soo gaareen xataa biyaha ilaa xudunta qaar u joogan qaar jilbaha u joogaan guriyihii oo dhan ay wada baaba'een ay biyihii soo wada galeen dhammaantooda sidaas si lamida ay saameyn ku yeesheen iskuulaadkii waxbarashada oo ay dadka wax ku baranayeen sidaas si lamida isbitaalkii weynaa ee degmada Afgooye qayb ka mida oo ay soo galeen biyihii in meel walba oo ka mida degmada Afgooye maanta saameyn ay ku yeesheen biyaha ha u badnaadaan xaafadaha sida Aytire iyo xaafadahaas kale ee gadigaas ku yaalo oo Damaley oo kale in xaafadaha Dhagaxtuur oo kale Raqayl oo kale intaba waxa saameynta ku yeeshay waa biyihii webiga ka soo fatahay ilaa Baalguri intaasaba waxa dhibaato maanta ay ka tabanayaan dadka hooygoodii baaba'ay goobihii waxbarashada baaba'ay goobihii kale adeega bulshada lagu bixinayay intaba ay saameyn ku yeesheen biyihii ka soo fatahay webiga waxaan faraynaa dhammaan hay'adaha ka shaqeeya gobolka inay si degdeg ah gurmad ula soo gaaraan dadkan oo ay ugu jawaabaan xaaladda taagan ha ahaato dhanka caafimaadka oo ay kaneeco ay ka dhalan karto iyo cudurrada kale oo la socda biyaha wasaqoobay iyo maxaa yeelay xataa biyihii dadka nadiifka ay cabi jireen ay saameyn ku yeelanayaan oo ceelashii biyaha laga cabayay ayaa biyaha daadadka oo soo fatahay ay saameyn ku yeesheen marka in biyo nadiif ay helaan dadkii hooy ku meel gaar ay helaan inta ay biyahan ka baxayaan in la helo sidaas si lamida caafimaadkii iyo marakaneecooyinkii si degdeg ah inay dadkan ku helaan ayaan amar ku bixinaynaa in hay'adaha kala duwan sidoo kale hay'adda wasaaradda gargaarka degdega wasaaradda maareynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed waxaan baaq ugu diraynaa ayagan inay gargaarkaasi iyo ka gaaritaanka dadkan in wax loo qabto ayagan inay baaqaasi ay ka soo jawaabaan hadduu Ilaahay idmo sidaas lamid ah hay'adda Sodma ayadana waxaan u baaqaynaa inay ka soo jawaabaan sida ugu dhaqsaha badan dadkan ay la soo gaaraan gargaar degdega iyo dhanka caafimaadka ahaado dhanka shelterka ama hoyga ahaado iyo markaneecooyin degdeg inay la soo gaaraan
sidaas lamida waxaan rajeynaynaa insha Allah shacabka qaybahooda kala duwan inay dadkaas u gurmadaan qof walba maanta waa xaalad murugo leh oo maanta ka taagan degmada Afgooye khaasatan in deegaanada ku hareeraysan webiga ayagoo u gudbayo intaasoo mitir 100 mitir ku dhawaad nus kiiloomitir ee biyihii ay gaareen oo webiga ka baxsan marka waxaan rajeynaynaa insha Allah si degdeg in loo jawaabo sidaas lamida degmooyinka kale ee laga soo sheegay fatahaadda oo ay ugu horeyso degmada Awdheegle iyo deegaanada Afgooye hoos yimaado sida Sabiid iyo Caanoole iyo Mareerey intaba biyaha ayaa gaaray oo reer Sabiid waa tay idaacadaha iyo meel walbaba meediyaha aad ka aragteen oo dhibaatooyinka ay ka sheeganayeen sidaas lamida Janaale Bariire ilaa Qoryooley intaasoo dhanba ilaa Mubarak intaba ay gaareen biyihii marka waxaan rajeynaynaa in si degdeg dadkaas loogu soo jawaabo si lamida waxaan codsanaynaa in hadhowna mustaqbaliyan sidii wax looga qaban lahaa maxaa yeelay in webiga waa uu buuxsamay carra iyo qashin iyo wasaq ayaa ka buuxsantay in qoditaan rasmi loo sameeyo markuu daadkan maanta uu laabto in geesihiisana dhismihii hore looga dhisay waa uu yaraaday in laga sii ballaariyo intaas in ka badan laga sii dhigo Sergito TV-ga iyo raadiyaha dowladda Koonfur Galbeed Baydhabo